waxaa ka dhex qaylinaya gaariga gabadh yar oo ku qaylinaysay adeeriga qabta adeeriga celiya adeeriga qabta adeeriga celiya markiiba saddexdanadiiba intaan kacnay ayaan gaarigii degdeg u galnay gaariganagii sidii ayaan gaarigii ku dabagalnay oo aan ku bursanay gaarigan saa u jeedaan daaqadiis way furan tahay waxaa xagga dambe isku dayaya inay ka soo boodo gabadhii yareed ee qaylinaysay kuna qaylinaysay adeeriga celiya adeeriga qabta waxa ay rabtaa gaariga inay ka soo boodo laakiin way ka cabsanaysaa oo nafteedu ma siinayso go'aankaas gaariga inay kaga boodo gaarigoo xawaaraha ku socda أنا كم بغلي شو حافظي ولا ولا والله كلها أنا من كاسو وراعي كاسو ولا عرف برتاق دقاقون كاسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السود وهذا هذا واتشر من الليل مقعين واتشر من الكسود وهذا مقال عصب وحقوله وذا يعني ننتو الله فكذا قبل يرو أفريت من شير أو سقير الله فكذا doonayay inay waxa kan leeyahay wax kasta inuu ku sameeyo ka bacdina laga dhigay ninkaas baan kula wadaagayaa oo waxa kan leeyahay isleeyayna muuqaalkiisa ku soo dhawo muuqaal farka ugu horeysa waxa ka codsanayaa channelka dadka cusub tahay inaad subscribe garayso muuqaalka ay share garayso aad buu mas'uul kaaga meelay daawashada fiidiyoga muuqaalka la ii saarto bal muuqaalka markuu ugu horeysa aan isla daawano ninkan gabadh ku baxsanaya ninkaas waa nintuuga gabadha markuu la cararay ee uu gabadha yartaa watay waxa kan leeyahay waxa garab dhigtay baabuurkii oo doonay inay ka dhigaan ama uu ka dhigaan oo waxa kan leeyahay gabadha yar ka reebaan maadaama gabadha yar ku qaylinaysa adeerow iga rida adeerow ninka iga dhiga adeerow ninka iga fujiya adeerow ninka iga celiya yaa ku dhawaaqaysa gaariga daaqadii baa furan oo gaariga daaqada waxa uu furan gabadheer waxay doonaysaa daaqada inay ka soo boodo daaqada ay ka gashay weeye oo daaqadii bay waxa kan la yiraahdo daaqadii baa u furan maadaama daaqada u furan tahayna waxay rabtaa waxa kan la yiraahdo inay soo boodo haddana naftu ma siinayso maadaama gaarigu uu si xawaara ku socdo oo gaarigu ninku aad u wado dabeetana nimankii gaariga ku eriyanayay ee kale dhallinyartahay arkay gabadha markii qaylinaysa gaariga daba dhigtay daba kacayay wuxuu iyagu qudhado iska ilaalinayaan wuxuu doonayaa inuu gaariga ku dhufto gaarigooda marka saas ku gadoomo asaguna marka uu saa ku cararo laakiin taasna way u saabix weydo iyagu way iska ilaalinayeen rag dhalinyarada kale ahaayeen oo gaariga laba gaari bay ku ceyrsadeen oo eriyeen gabadh gaariga markay ku eriyanayeen gaariga adu wixii ay wadaan way qaban doonaan laakiin mar horta isla fiirino markuu ugu horeysa sheekada dhex martay nimanka iyo sidii lagu qabtay ninkaas أنا كم بغلي شو حافظي ولا ولا كلها أنا من كاسو وراعي كاسو ولا عرف برتاق دقاقون كاسو إلى صباح صباي ووقت dambe وهبينما تانكي لبي تانكي gaarigii markii la qabtay iyo sidii ninkiiba markii la qabtay ay dhalinyartii qabteen ee booliskina ay u waceen la qabtay waxa kan la yiraahdo ay qabteen bal aan isla fiirsano wiil kale ka sheekeynayay waxaan kaaga digayaa markii ugu horeysa waxa kan la yiraahdo muuqaal inaad waxa kale iska gashaan gabdhow xalimooyinka aad bay waxa kale u dheereeyaan waxa iska galaan baabuur meel iskaga baakiban qof baabuur ku dhex jira oo la hadlaya qofkaas ay iskaga galayaan markay iskaga galaan baa la wadanaya ama wax sanka loo saaro ama wax kale gacanta loo mariyo ama xoog ba lagu watee waxaa jira dumar badan oo saas sameeyo intay gaari meel iskaga baakiban markay la hadlaan dumarka waa la yaqaan gaari dumarka iyo gaariga ilaa aragtiba u dhaxaysa waxa kale wadkoodana weeye baabuur imisa qof garanaysan ama qof inta qof aad taqaano oo aad og tahay oo baabuur inta saas kale qof baabuur ku jira inta uu wacday oo la cararay ama waxa kale dhibaato kuwa isku qarsaday dhibaatadooda ama kuwa wax kale lagu dilay ama waxa jira kuwa lagu waayay laakiin gabadha markii baabuurkii uu galay waliba uu sidaas ku khayaano ku yaada kala xog weydiinay ay gashay ee waxa kale ay gashay maadaama ilmo yar ba ay ahayd haddana wuxuu dabcay inuu la cararo oo waxa kale yiraahdo khadka kala baxo
وماشي دور لا dee ma cunayaya ma dilayaya ma gadanayaya yaa yaqaana bal horta muuqaalkan isla daawano wiilkan aan nooga sheekeynaya isla dhageysano waa waqti dambe oo habeenimo ah 12 ama 6 saac habeenimo kolba saa u taqaanaan waxaa aniga iyo laba wiil oo saaxiibanahay aan u soo baxnay bannaanka si aan uga soo cashayno waqtigaas dambe markii aan bannaanka u soo baxnay ayaa hoteelkii aan nimaanay ayaa waxaan soo fadhiisanay kuraasidii bannaanka taalay si aan hawada bannaanka ugu qaadano halkaan ugu cashayno cabaar markii aan fadhinay ayaa waxaa dhacday in uuna soo garab maray gaadhigan oo magaciisa la yidhaahdo dukhaan ahna mid ka mid a tagaasida ka dhex shaqeeya Hargeysa gaarigu markii uuna garab maray waxaa ka dhex qaylinaya gaariga gabadh yar oo ku qaylinaysay adeeriga qabta adeeriga celiya adeeriga qabta adeeriga celiya markiiba saddexdanadiiba intaan kacnay ayaan gaadhigii degdeg u galnay gaadhiganagii sidii ayaan gaadhigii ku dabagalnay oo aan ku bursanay gaadhigii gaadhigan saa u jeedaan daaqadiis way furan tahay waxaa xagga dambe isku dayaya inay ka soo boodo gabadhii yareed ee qaylinaysay kuna qaylinaysay adeeriga celiya adeeriga qabta waxa ay rabtaa gaadhiga inay ka soo boodo laakiin way ka cabsanaysaa oo nafteedu ma siinayso go'aankaas gaadhiga inay kaga boodo gaadhigoo xawaaraha ku socda ay ka cabsanaysaa adi waxay saa ahaataba oo aan gaadhiga aan daba soconno gaadhiga markastoo isku dayno inaan gaadhiganaga garab gelino una sheegno inuu istaago ayuu gaadhiga xoog noogu soo leexinay isagoo isku dayay inuu ku dhufto gaadhigiisa gaadhiganaga adi waxay saa ahaataba muddo cabaarana warwareejinayay uu kolba wadana kala leexanayay laamaha amniga ayaan wacnay annagoo la socodsiinay xaaladda jirta iyo si wax yihiin adi waxay saa ahaataba oo aan gaadhigii muddo badan daba soconay ayaa waxa dhacday markii uu marayo xaafadaha 150 markuu marayo ayuu gaadhigii hoostiisii waxaa ka kacday maansaa ka kacday ama electric baa ka kacday taasoo sababtay gaadhigii xawaarihiisa inuu yaraado markii ay saa noqotay alxamdulilah waxaa dhacday ayaan gaadhigii garab galnay annagoo mar kale u sheegayna inuu gaadhiga istaajiyo ninku gaadhigii markii siduu ay xawaaraha ama speedka uu gaariga ku socday markuu mar ka dambaysa soo yaraanayo ayaa waxa dhacday inuu gaarigii markii dambe istaago markii uu gaarigii saa u istaagay ninkii wuxuu isku dayay inuu gaarigii u degdeg uga baxsado markiiba degdeg baan wada baxnay ninkii oo isku dayay inuu baxsado ayaa labadii wiilan saaxiib ahayn ninkii waxay u qabteen garbaduub anigana gabadhii baan u aaday si aan u hubsado xaaladdeeda iyo inay caafimaad qabto adi waxay saa ahaataba qayladii iyo buuqii waxaa soo baxay oo noo yimiday dariskii ama dadkii deganaa eriyadaas adi waxay saa ahaataba oo ninkii meesha aan ku hayno ayaa waxaa yimaaday askartii baa timiday waxay mahad idilkeed u sugnaatay ilaahay subxaana watacaala nala kulmiyey waxaan kaloon u mahadinayaa laamaha amniga oo intii gaarigaas aan daba soconnay oo kolba wadda nagala leexanayay taleefanka khadka noogu jiray aan una sheegaynay kolba meesha uu gaarigu marayo markii dambena noo yimiday ninkiina sidaa ku xidhay ujeeddada aan videogan usoo duubay waxa weeyaan in gabdhahu ay digtoonaadaan taxadaraan ayna gelinna gaari aysan garanaynin waan isla daawanay muuqaalkaas waan isla dhegaysanay waad ogtiin gabdhow cadowgiinu aad buu tiro badan yahay waadna ogtiin waxaa kale baabuurka idin deynayn yaa baabuurna idin deynayn marka muuqaalka intaas ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi